إن أنا كاسي سبورتي هذه على الشدة ونأركي وجهيس أيام دوني بالينو صوير استاجو السجنة كلمتين لا يبكوا هذا السود علي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii mahadoo dhan waxaa iska leeyahay ilaahayga wadda noo siiyay inaan maanta meeshan isugu nimaadno marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo runtii qabanqaabiyayaasha barnaamijka soo qabanqaabiyay waxaan kaloo runtii mahad celinayaa qoraaga oo runtii aad moodid in uu qoray book inta badan anigu buugaag badan oo hadda magaalooyinkan hadda aan deganahay lagu qoray oo last maartay labadii sano ugu dambeysay dad badan oo wax qoray buugaagtooda runtii waan wada hayaa mid walbana waa soo qaadaa guriguna ii yaala intooda badan runtii waxay ka hadlayaan hadda sida maartay British oo sheegay waxyaabaha maartay social science oo sida maartay ganacsiga iyo qaarkood siyaasadda inay ka hadlaan qaarkood inay ka hadlaan meelo kale oo adiga runtii aan ahayn hadda buugan wuxuu ka hadlayaa wax maartay unique ah barashada naftaada marka runtii waa wax maartay runtii qoraag loogu mahad celiyo in maartay book noocan inuu qoro waxaana fiican runtii in dadku ay aqriyaan laana waxa weeye marka leeyahay naftaada baro marka leeyahay qofka faa'iido ayaa ku jirta oo qofku markuu naftiisa yaqaano markuu yaqaano waxa uu ka xanaaqo waxa uu jecel yahay waxa uu sa jeclayn wuxuu isku dayaa dadka kale tan sidoo kale inuu la dhaqmo oo markaan maartay Axmed la dhaqmayo inaan naqaano Axmed waxa uu jecel yahay waxa uu ka xanaaqo waxa uu sirribin waxyaabaha maartay sheey qofka dareenkiisa kicinaya waxa dejinaya marka runtii in book noocan uu qoraagu qoro qofkan uu sheego talaabooyinka u fududeynaya qofka naftiisa inuu barto waa wax maartay runtii wax qoraag loogu mahad celiyo book qoristiisuna runtii ma sahlana wuxuu u baahan yahay waqti wuxuu u baahan yahay in maartay sheeg wax badan la arooriyo waxa ugu maartay dhibka badan oo book leeyahay way marka soo bandhigaysid waxaad is weydiinaysaa war dadku say ku arkayaan naftaada weydiinaysaa ma jeclaanayaan waa runtii isweey ma jeclaanayaan ma dadku ma soo cay doonaan ma soo amaani doonaan waxyaabo ugu badan way marka in book la qoraa runtii ma sahlana bulshooyinkuna bulshada ay ka qoritaan badan tahay oo ka kayd qoritaan badan tahay way ka waayarsan tahay runtii marka boogan wuxuu noqonayaa runtii book kaydka taariikhda Soomaalida soo gala laga yaabo 100 sano ka bacdi in reference loo soo qaato la yiraahdo tahliil colaad wuxuu ka qoray boogan sidaan ay ka qoray marka runtii mar labaad mar saddexaad waa u mahad celinaynaa idinkana waxaan iska wada codsanaynaa inaad maartay akhrisaan nafsi maartay sheegeen aad naftiina uga faa'iideysaan nafta dadka kale uga faa'iideysaan sida la sheegana buugaagta inta noo artay inaan laba iyo saddex sii qaadano mar labaad iyo mar saddexaad qoraaga tahliil waxaan leenahay soo dhawow minankaaga waaye reer Minnesota waxa lagu yaqaan soo dhaweynta maartay dadka kor nooga yimaada meel kasta nooga yimaadaan marka soo dhaweynaa soo dhawaada